ciidamada wadanka Mareykanka ee ku sugan dalka Syria ayaa lagu soo waramayaa in ay ishorista ku sameeyeen kolonyo ciidamada oo ka tirsan militariga dalka Ruushka. ciidamada Ruushka oo ku sii jeeday gobolka Saag ee wadankaasi Syria ayaa muddo daqiiqado ah hakad lagu sameeyay kadib markii ay Jidgooyo aan la filayn u dhigeen ciidamo ka tirsan militariga Mareykanka sida ay ku soo waramayso warbaahinta dalka Syria. deegaan lagu magacaabo Qamshila ayay dhacdadani ka dhacday inkastoo ishortaaga ay ciidamada Mareykanku ku sameeyeen kuwa Ruushka uusan isku bedelin gacan ka hadal, haddana waxay ahayd daqiiqado lagu sigtay in xabadu isdhaafaan khasaare weyn halkaas uu ka dhasho. ciidamada Mareykanka ayaa ku waysnaa baabuurta gaashaaman ee xabadu aan karin, halka kuwa Ruushka ay wateen in intaasi la mid ah. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalin ka hor uu gacan ka hadal dhex maray ciidamada Bashar al-Assad iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan gudaha Syria, waxaana dagaalkaasi ku dhintay ciidamo ka tirsan kuwa Syria halka ay ku dhaawacmeen dhowr askari oo ka tirsan militariga Mareykanka. dowladda Ruushka ayaa si weyn u taageerta xukuumadda uu hogaamiyo Bashar al-Assad, halka ay Mareykanku falaaga u aqoonsan yihiin. dowladaha Ruushka iyo Mareykanka oo mid walba dantiisa khaaska u jooga dalka Syria ayaa dhowr mar ku sigtay inay isku farasaraan gudaha wadankaasi kadib markii ay si kafool ah isaga soo horbixeen iyaga oo mid walba u socdo dantiisa khaaska ah ee uu ka leeyahay gudaha wadanka Syria.